galab wanaagsan dhammaantiin meel kasta aad joogtaan iyo sulboodii soo gaaraya muuqaalkani halkani waa garoonka weyn ee injineeriiriso degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir daawadayaal waxaad ku soo dhowaataan tabinta kulanka ugu dambeeya ee toddobaadkii saddexaad ee horyaalka soomaaliya kaasi oo galabta dhex mari doona kooxaha elman iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta ee raasan 2020 garsoorku seriga ayuu ka dhawaajiyey waxaana la baastay 45 daqiiqo ciyaarta ugu horeysa kubaddii xoogganeed ee lugtiisa midig uu ku darbeeyey laacibka lagu magacaabo bashiir aways mahdi lambarka 7 ee kooxda kubadda cagta raasan oo way lumiyeen elman jabriil xasan fariid waa baasay yaasini bannaanka markasta uu qalad sameeyo difaacada markasta uu qalad sameeyo gool cayaada markasta uu qalad sameeyo difaac kooxda elman ah farxadeedu waa kooxda raasan qalad uu sameeyey difaaca kooxda raasan dabcan waa kooxda elman ee qaabteedu waxay noqon rabtay shabaqa jabriil ayaa baasay yaasiin ayaa salumiyey waa ciyaartooy ka mid ah ciyaartooyda jookarada kuwaas oo ciyaari karta boosas kala duwan oo garoonka gudihiisa ah waxaase sidoo kale uu ciyaari karaa lambarka 6 boosalista xasan maxamed cismaan kamuusan faa'idaysan fursaddiisa umuusan faa'iidayn kooxdiisa axmed cali wuxuu yidhi najiib cabdulqaadir waxaa rajeynayaa in galabta guusha ay raacdo kooxda raasan garsoore xasan kaafi seriga ayuu ka dhawaajiyey waxaase gebi ahaanba qaybta koobaad ee ciyaarta lagu kala marayaa raasan eber elman futbol kalaab eber waayahay waxaa laambaqaada qaybta labaad ee ciyaarta kulanka weyn ee u dhexeeya kooxaha elman iyo sidoo kale raasan ciyaartooyda galabta laga baranayo ciyaartan iyo guud ahaan xilli ciyaareedkan cusub horyaalka soomaaliya nortoto waa gooyay yaasiin ayuu ku horqaatay nortoto waa u soo korosay yuusuf yacquub yuusuf idonbaas ayaa kubaddaas soo daafacay xamse xasan warsame weli xerada ganaaha ayay taalaa waxa uu ka mid ahaa ciyaartooyda xawaareynta badan kuwaasoo darbooyinkooda ay kulil yahay cross yaasini golatso raasan way ku bilaabatay elman way raaxaysanaysaa kooxda kubadda cagta ee raasan waxay ahayd kubad foora gacana taasoo u soo baasay alkabitaana abaas kubad xagal ku dhisan uu soo dhigay xerada keliya lugta midig uu ku dhammaystiray ciyaaryahankana uu magacaabo yaasiin haddii aad haysata yaasiin waxaad haystaan nooc ciyaaryahan ah kaasoo wax badan ka samayn kara boos walba haddii aad haysata yaasiin waxaad haysataa ciyaaryahan wax badan dili kara hanka kooxda ka soo horjeedsata waxaa ku qasbay beddelka ayaa ah goolkani waxaa ku qasbay beddelka ayaa ah kubaddani musiibada waa kooxda elman kubaddani mashxaraada waa kooxda raasan dhaliyaha goolka waa yaasiin aways maxamed yaasiini nuur iraad cabdullaahi waa uu soo koroosan nuur xamse ayaa xakameeyey face to face yaa lagu wajaha xasan siidow waa lagu hortuurtay xasan siidow waa uu dagaalama xasan siidow waa uu dhacay xamse kubaddii uu soo koroosan waa uu xakameeyey lambaasa iyadoo barbareen doonta goolka lagu leeyahay waa la soo koroosa markan raasan goob kale bashiir madax boqorka hal abuurka kubaddii uu soo koroosa waa laga soo saaray garabka ayaa la soo dhigay markan waa kan cabduhaab awees muuye cabduhaab waa gooya cabduhaab oonka waa laga xarooday cross waxay ku dhowaateen kubaddaas si kamaha uu isaga dhaliyo xasan maxamed cismaan garabkay mar kala soo dhigeen xidigaha kooxda elman nuur iraad cabdullaahi waa uu soo baasay nuur iraad cabdullaahi qaab xun ayuu u dhacay mid ka mid ah ciyaartooyda kooxda raasan garabka ayaa la soo dhigay maxamed cusmaan abuukar bannaankuu soo dhigay miyay soo noolaan doontaa wakhtigan dhimashada ah kooxda kubadda cagta elman sidii guul ay ugu gaartay dekadaha oo gale waa la soo korosay labaale ayuu isku dayay xasan maxamed cismaan waa uu limiyey yuusuf wambaasa garsoorku waa u ansixiyey bal aan daawanoo kubaddii haliska ahayd taasoo xasan maxamed uu isku laabay yuusuf lambaasa way ka baxsatay balse kubaddii uu darbeeyey maxamed nuur cusmaan maarsiyaal kubaddii uu soo korosay donato keel ayaa soo saaray nuurtoto ayaa soo taabatay kubaddaas ayaase ahayd kubaddii ugu dambaysa guud ahaan ciyaarta wax kastoo la wada ciyaaro wax kastoo ciyaarto ay socoto
waxaa gebi ahaanba guud ahaanba kulanku uu ku soo idlaaday gool eber oo guusha ay ku raacday kooxda hogaaminaya tababaraha lagu magacaabo cabdijoon garabkii wuxuu ka haystaa markan tababaraha kooxda kubadda cagta elman muraad cabdulqaadir maxamuud